ma ahayn lacag la'aan kaliya in loogu dhigo ardadu jiif bay lahaayeen cuntay lahaayeen lacag baa la sii jiray xataa maadaama awooddeeda taas aysan dhammayn maanta waxaan ku soo jeedin lahaa jaamacadda dormitorygoodii dhan halkan ay ku wadayaan dad shacabaa ku wada jira gabadha waxay tilmaantay gobollo inay ka yimaadeen waa la seexin jiray taariikhda maanta aday jaamacadda ku tahay magan marka waxaanu codsanaynaa dalkan si uu u kaco dhibaataduu ku jiro uga baxo oo dowlad rasmi ah waddanka uu sii yeesho xoog leh waad arkaysaa intii haraaga ahaa oo waddanka ku hartay ayaa wasiiradaada u badan oo jaamacadan ay soo saartay waxaanu kaa codsanaynaa jiilkaas soo socda inaad si degdega tallaabo uga qaadid hayr ee jaamacaddii ummadda waxay la tahay aniga waxaa taas ay keenaysaa in ififaale iyo dilo weyn ayna siinayso in Soomaaliya ay dib u soo kabanayso in Soomaaliya ay ka soo baxayso jahligii iyo dagaalkii iyo dulligii laakiin maanta iftiin uu noo baxayo in xarumihii ilbaxnimada xarumihii waxbarashada heerka ugu dambeeya ama heerka saddexaad oo lagu diyaarinayo dad Soomaali ah oo horumar keeni karo in maanta aan ka fakarayna sidii aan u soo ceshan waa progress aan gaarnay inaan ku dhiiri galino ama aan galino Burundiisku inay ka guuraan bacdama ay meeshaan tahay educational institute ay tahay ay tagaan meelihii ay iyaga ku haboonaayeen oo dagaalka dhufeysida uga jireen halkan annaga aan isku tashanno aan u maalgashanno oo aan uga shaqeyno mustaqbalka caruurteenna waa mahadsantihiin waxaan ku ballanay inaan dib u dhisano jaamacaddeenna waxaan ku ballanay inaan ka wada shaqeyno midnimada Soomaaliya